shirkan waxaa loo fadhiistay banaadiri ah aqalka sare iyo barnaamijka banaadirka markaan waxaan leeyahay waa dadka akhyaarta kulli waa wada leeyihiin waxaan kale idiin sheegayaa waxaan rabnaa shir oo gogol inaan dhigano oo dadka anaga nala degan banaadiri ah nala degan inaanu dhigno hadda ay banaadiri anaga waay xamartay soo badin xamarkii anaga anaan dhigno waay dadkaas inaan wacano aan wada fadhiisan aan wada hadalno gobolkan dadka ka hadli kara masiirka waa reer banaadir waana la og yahay caalamka meel kasta laga og yahay marka dadka xoogga wato ee dhahaya anagaa leh kuraastan 4.5 lagu qaybiyo wax anaga maanta aan yeelayna ma aha waa ka soo horjeednaa diyaarna waxaan u nahay in aan u dagaalano weliba banaadir badkaani waxa waaye tulweyna banaadir waaye marka banaadir intuu isku dayo inuu xaqiro hasa xaqimo yaala madaxweyne yaala maxamed cabdullaahi farmaajo aad aan ku raacsanahay boqolkiiba boqol ku raacsanahay warkii asriin waa raacsanahay boqolkiiba boqol waa ku jirnaa garabkaadan taagan anaga daar banaadir nahay dowladnimada anaga keenay dowladnimada hadda maanta calankaas taagno fisgoorta anaga keenay anaga dowladnimada maanta soo ascadna dadka maanta dowladnimada oo magaca leh waa dadka banaadir oo hormud yihiin reer xaaji dheer hormud yihiin alxamdulilah macnaha uu naxariisto walaalayaalo banaadir macnaha ma aha dad kaftamaya ma aha aqoonna dilaa qaro ma qarsamaayo marka ma doonayno in anaga dadno bini aadan oo muqdisho ku nool oo muqdisho leh in haddana la yiraahdo yani waxa ka tihiin ma jirto ma dhici karto taas meeshaan haddii la dhaho waa la xisaabtamayaa oo micnaha taariikhi waa la gelaya haddii la dhahana banaadir waa la ogyahay wixii yihiin kaalinta ay ka qaateen yani dowladnimada ilaa iyo maxay ahayd ilaa iyo 13 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كليب كاس كلي وكدرك سنتين أو ملاينا مالك لا كداوتين الصوغ ماركتي ولما يسترن كلي وحان ربا ماركتي أرتاس إنان تعقيبيو يو ماركتي ورصحافيات كي سوسارين سياسيين تنقمتلو دولة حلوانا بلاها بنادرية هورتا ورصحافات كسو بحي يشيرك هذا الصعود كلي إن شاء الله أنا شخصيا وتاجر سنهاي إن ماركتي دتكي إسكوي مادين ومصير كذا بنادرية ماركتي كهرلان ماركتي وحي أي كول والسيهين وحي كلام كل ماركتي ماشي كعديان وماركتي تلفزيون كي مادو تمشكلة كانت المشكلة وعو ماركتي أو أي درين كودي قد بيان وح آدي آد ماركتي ومهم سواي لكن محلي هذا ورصحافات كخاصة ورصحافات رنتي كوبن وها أو ماركتي رنتي إن لبلاري وباهن هدي ماركتي البلاري كلي دتكي خاصة بنادرجة ويفهم دونان مارتي وحى لسوقري ورصحافة عن لسوقري ومارتي ذاتك أي كم تلاقي أي يعني ولجد كليين أساس وكله حالي هذا حزبياشة أما مارتي كل ما هذا وجدين ومارتي حزبياشة كمية ودياري iyo maartay ku laga yaabo maartay mustaqbalka inay iman doonaan laakiin ma naqaan yaa soo diyaarin doon hadii ilaahay idmo marka intoodaas kulli maartay waxa fiican warsaxaafadeedkan in maartay ay qayb ka noqdaan sida aniga aaminsanahay in maartay warsaxaafadeedkaas uu noqdo maartay mid wax ku darsan karaan oo maartay runtii ka balaaran oo maxaa la yiraahdaa xukuumadda ama dawladda dhexe iyo beesha caalamka laftigood maaragtay inta si fiican loo articulate gareeyo maaragtay loo yani markaas la gudbiyaa
marka dhowr horto arrinaa jirto oo kulley waa wada fahansantihiin saan aniga aaminsanahay wax maaragtay hadda cusub oo maaragtay oon anigan keenay ma ahan laakiin kulamadoo kale xogaa yar hadda kulanka noocan oo kale hadda ma ku arkin ma ku maqlin ma fahantay ayadoo maaragtay la xusaayo haddii dadka qaarkiis ay ka maqan yihiin ama dadka qaarkiis ay xusuustaan ay og yihiin in maaragtay telefishinal isticmaalaya maaragtay waxyaalaha qaarkiis in xogaa yar la ifiyo iska fiican tahay horta meesha waxaa laga hadlayaa maqaama laga hadlayaa maqaamkaasna maaragtay waxaa la rabaa in la siiyo gobolka banaadir laakiin anigisaan aaminsanahay yaa yiri gobolka banaadir hadda maqaama ka maqan muqdisho maqaam ma leh yaa yiri xamar maqaam ma leh yaa yiri maqaamka ay haysato ma gobolka la haystaa jiro runtaa fiican sababta waxa waaye meeshaan xaruntii dowladda dhexe waaye waxay xarun u ahaan jirtay maxaa la yidhaahdaa talis kasta oo soo maro meesha xarun u ahaan jirtay sayid barkash kadib maaragtay isticmaarka talyaaniga ingiriiska iyo xataa sayid barkash kuwii ka horreeyay kulli waxaa xarun u ahaan jirtay muqdisho xarun u ahaan jirtay taas maqaam ma aha miya dadka qaarkiis maqaamka waxay u maleeyaan dowlad goboleedyada sida ay yihiin mataqaaniin dowlad goboleedyada waxa waaye maamul ku dhisan qabiil waaye kaas maqaam haddii aad maaragtay aad rabtid inaa banaadir ay keentid kaasoo kale maqaam ma dhihi kartid marka dadkeena banaadiriga mas'aladaas inay fahansanaadaan aad iyo aaday muhiim u tahay waxaa meeshaan dowladda dhexaad joogto xarun ayaday u tahay waxay xarun weligeedna xarun ay ahaan jirtay talis kasta oo soo mara xarun u ahaan jirtay dadka ku nool meeshaan oo khaasatan qowmiyadda banaadiriga beelaha banaadiriga ayakay ahaayeen maaragtay dadka wax walba lagala tashan jiray talis kasta meeshu u yimaado dadku la tacaamuli jiray ayakay ahaayeen taariikhday ku xusan tahay kaas marka waxaan hadda oo meelaha laga sheegsheegaa waqti doonaa ku jabti iyo kan waxa waaye dad raba inay wax dafaan wax xoogaan oona u bartay arrintaas inaa laakiin markasta u soconaysa u malayaan mafahanta laakiin wax cilmi ku dhisan maaha wax taariikhdana shaqo ku leh ma aha taariikhda way ku xusan tahay talis kasto meesha oo yimaado dadkoo la tacaamuli jiray waa dadkan oo qowmiyadda banaadiriga ah waana dadka indigenouska ah mas'aladaas in la fahmo aad iyo aaday muhiim u tahay waxaan diidanahay banaadiri haddii aan nahay haddii maaragtay maamul federaal uu noqonayo banaadir ama maaragtay sababta waxa waaye 7 kursi aa loo qondeeyey marka maxaa la yidhaahdaa maamul oo yeelanaa marka matalaad inay maaragtay aqalka sare ay ku yeeshaan markaasoo kale inuu maaragtay maamul oo goonigiisa u shaqeynayo inuu yahay laakiin ka tirsan maamul hoose inuu yahay dowladda dhex ka tirsan yahay laakiin ma rabno inuu u ekaado kan maamul goboleedyada waay waa soo sheegay kan maamul goboleedyada waa mid ku dhisan qabiil sida hadda u jeedin oo qabiil gaar ah uu leeyahay anaka dadkaasaan nahay anaka hana loo geliyo meesha gacanta taladeed anaka iska leh intay ka timid waxaa loogu dayinayaa maamulayaasha kale waddanka ka jira aa loogu dayinayaa maamulayaasha laftigood dhibka ay dowladda dhexe ku hayaan waa ogtiin waxay ku leeyihiin sovereign aan nahay sovereign macnihiis maxaa waay yani sovereign aan nahay waxay ka timid waxay isku arkaan maxaa la yidhaahdaa confederal inay yihiin confederal iyo federal xogeer waa kala duwan yihiin confederalka waxa waaye waddan iyo ama dhowr waddan maaragtay talada isku darsaday oo maaragtay federal ay samaysteen laakiin federaalkooda waa confederal
waddan kasto maamulkiisa maaragtay iyo arrimihiisa asaga u gaarka ah cid faraha la soo geli karta ma jirto tan dhexe oo maaragtay confederationka isku hagto confederation hadda sida federaalka kala dowlad dhexaan leenahay confederation saasoo kale ayadana waxay leedahay maamul dhexe leedahay maamulkaas dhexe wuxuu ka shaqeynaa wixii common oo maaragtay danaha ayaga ka dhexeeyo uu ka shaqeynaa laakiin arrimahooda u gaarka ah faraha lama geli karo jawigooda kale ayaga maaragtay xukumo badooda kale ayaga maaragtay hago maxaa la yiraahdaa barigooda ayaga hago waxay rabaan ay soo gelin waxay rabaan maaragtay ay ka bixinayaan ciday rabaan maaragtay heshiis la sameeysanay cid faraha la geli karto ma jirto confederation kaas la dhahaa confederation isku arkaan waa maqasheen maaragtay Jubbaland madaxdood oo dhahayaan maaragtay dawlad yaraan ahay maaragtay cidaan rabaan aan soo heshiin karaa maaragtay waxaan rabaa aan sameeysan confederation way haddii maaragtay maamulayaasha Soomaaliya kulli saasoo kale ay noqdaan dawlad dhexe wax la dhahay ma jirto Soomaaliya wax la dhahayna ma jirto waa meesha Soomaaliya ku baabi'ayso oo haddana maaragtay waddanka oo shisheey gacanta ugu galay haddii madax banaani noocaas oo kale matalan Jubbaland ay hesho yaa u gamban Kenya kale u gamban waqti yar ka bacdi waxa laga yaabaa inay maqashid wuxuu ku darsamay meeshaas ku darsamay and so on maamulkayga ana maaragtay dawlad gaaran ahay cidaan rabaan aan maaragtay heshiis la soo sameysana waxaan rabaa maaragtay aan sameeyna faraha laga qaado haddaan rabo maaragtay waxaan ku darsamaa maaragtay waddan kale ku darsamaa marka dhibkaasaa jiro ay maaragtay ay maamulayaasha ay qaarkood ku hayaan dawladda dhexe waxaan hadda dawladda dhexe la dirirayso waxa waaye in Soomaaliya kulli hal ay ahaato inay hal ahaato laakiin dadka aan fahansanin waxay ku leeyihiin may qabiil hebel oo dan leeyahay qabiil hebel la rabo maaragtay in saas la yeelo in maaragtay kan la gumaysto iyo waxyaalo oo badan oo maaragtay oo ay sheegayaan oo runtii aan maaragtay oo reality-ga aan wax ku lahayn marka ala kulli xal anaka mowqifkeena ha cadaado ma rabno confederation ma rabno maamul oo qabiil gaar ah gacanta uu ku hayo ma rabno maamul oo kan maamulayaasha gobolada ama federaalka ma rabno telefishinka hadda waa joogi maaragtay mas'alaasna kulay maaragtay in laga gambada ma fiican runta fiican in maaragtay oo mowqifkaaga si fiican oo cadaysid waxaa jirto meeshan beesha caalamka joogto mashaariicdii maaragtay dalka iyadaa la keenaa maxaa la dhahaa deeqihii iyadaa la keenaa maaragtay hadday noqon lahayd maaragtay deeq waxbarasho hadday noqon lahayd caafimaad hadduu noqon lahaa adig wax walbo ayadaa la keenaa ayadaa la soo marsay xataa haddii meel kale loogu talagalay ayadaa maaragtay waxa u maxaa la yidhahdaa ruut u ayadaa la soo marsiyaa inay soo marto maaragtay dowladda dhexe soo marto waa inay maaragtay soo martaa muqdisho inay soo martaa xamar soo martaa banaadir soo martaa kaas maqaam maaha miya maqaamka kaas ka duwan ay raadinaysin maxaa way mise wax maaragtay loogu talagalay maqaamka in lagu baabi'iyo waxaa rabtiin ay tiraaheen maqaam way ganacsatadii maaragtay ugu waaweynaa maaragtay meesha wax keeno wixii waddanka laga cuni lahaa wixii waddanka laga cabi lahaa wixii maaragtay la isku daaweyn lahaa wixii waddanka lagu dhisi lahaa wax kale ii sheeg ma fahantay wax walbo maaragtay oo ku saabsan canshuurihii ii sheeg canshuurihii maaragtay meesha ugu canshuur bixinta badan ama canshuur ururinta badan ma fahantay kaas maqaam maaha miya meelaha qaarkiis waxaa ka maqlay caasimadda la qaybiyo kale caasimadda la qaybiyo ha laga dhigo maxaa la dhahaa laba qayb waa maqashan qayb
waxaa fadhiisanayso maamulka cusub oo federaalka ah oo maaragtay oo banaadir uu lahaan doono iyo qaybna maaragtay waxay noqonaysaa caasimadda dowladda dhexa fadhiisanayso matalan xaafada qaarkiisa dowladda fadhiisanayso oo caasimadda waa leeyahay xaafadaha qaarkiisna waxaa qaadanaya maaragtay ismaamulka oo maaragtay banaadir qaadanayo maayarkooda iyo kulli ayaa fadhiisanayo sida maamul goboleedyaasha camal ay u dhisan yihiin camal ay maaragtay loo dhisaa aniga misaal soo kasoo horjeedaa wax ila saxsanna ma sababta waxa waaye hal meel waxaa isku keentay laba awood labadaas awood shaki ma ku jirtaa inay isku hirdinayaan mashaariicda la isku hirdinaa canshuurta la isku hirdinaa waxaa la isku hirdinaa maaragtay mataarka liftigiisa la isku hirdinaa mataarka ugu mashquulsan waay international waay sida ayay maaragtay international u tahay meel kale international u tahay ma jirto saasoo kale maxaa la yiraahdaa dekada waxyaalahaasoo dhan waa la isku hirdinaa anaa maamulayo anaa xirayo anaa furayo anaa maaragtay wafdi hebel anaa soo dhaweynayo anaa maaragtay yeelay hebel ma kasoo degi karo hebel ma ka bixi karo hebel maxaa loo yeelay iyo maxaa loo sameeyey weligiisa buuqaan istaagin ka socon doono xataa maaragtay examplekaas qur'aanka waa tilmaamay examplekaas qur'aanka koonkan ilaahay fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri example asoo siinayo koonkan haddii maaragtay ay joogi lahaayeen aaliha kale oo ilaahay khayrkiisa haddii joogi lahaayeen waa fasaadi lahayd ma fahamtay law kaana fiihima aalihatun ila allahi lafasadataa arlada iyo samaawaadka haddii ilaahay khayrkiisa ay ka jiri lahaayeen way fasaadi lahayd sababtoo hadhowdi waa la isku hirdin lahaa shaki ma ku jira arrintaas marka waxa waaye maqaam ama caasimad oo hadhowdi saas loo kala qaybin doono raalli kamanihi ma ogolaanayno walaalayaalo arrintaas meel noogu qora qur-aankaana maaragtay examplekaas idin tilmaam idin sheegay waxaa maaragtay mudan ayadana maaragtay in la xusuusto oona maaragtay la caddeeya hadda waa ka maqlay maaragtay meesha si fiican insha Allah loo articulate gareeyo waxyaalihii maaragtay la xiriiray taariikhda iyo kulli maaragtay ha lagu daro dadka banaadiriga inay maaragtay yihiin dadka ay ka deegaanka loogu yimid oo maaragtay ay yihiin dadka indigenouska meel oo maaragtay weligiis nidaamka diri jiray dadkii Soomaalida kalena soo jiitay tartiib maaragtay loogu imaanayay ee dadka soo dhaweyn jireen laakiin dadka kaliya oo weligood nidaamka hoos noolaa ismaamulka hoos noolaa inay ay ku ureen ay ka ahaayeen oo markaas saas maaragtay tartiib loogu yimid dadka indigenouska waxay leeyihiin xuquuq gaar ay leeyihiin xuquuqdaas gaarka ay leeyihiin waxa waaye deegaankooda maamulka iyo talada meel ay ka maqan yihiin ma jirto maamulka iyo talada wax walbo wax kasta oo yar iyo weyn maamulka qayb ay ka yihiin election laga guuleystay iyo kana ma jirto waa dadka indigenouska talada wadanka yani talada deegaanka in maaragtay wax walba ayada laga la tashtaa yani ama taladeeda inay ka maqnaan karin dadka indigenouska xuquuqdooda kaasa kamid ah xuquuq gaar ay leeyihiin because dadkii meesha u dhashay way ka duwan yihiin dadka meesha ku dhashtay oo meesha ku dhashteen because waxa waaye abooda maaragtay meesha soo degay then ay ka lagu dhalay ama awoohooda soo degay meesha markaas abaa lagu dhalay markaas caruur oo dhalay markaas waa lays dhalay taasna waa jirtaa dadkaas dadkii meesha ku dhashtay way fahamtay dadaa ka horeeyay oo boqolaal sano meesha deganaa 1000 sano kor u dhaafay 2000 sano kor u dhaafay meesha deganaa oo guryahoodii maaragtay liftigood ay maaragtay taariikh ahaan ay maaragtay ilaa waqtigaas ay taagan yihiin ilaa hadda ay taagan yihiin dadkaas qoomiyadda banaadiriga waa la yaqaanaa
dadkaas dadka meesha u dhashay way dadka meesha u dhashay xuquuqda ay leeyihiin way ka duwan tahay xuquuqda kan meesha lagu dhalay way ka duwan tahay xuquuqda dadka kale ay sheeganayaan fahanti yani dadkii maaragtay meesha deganaa oo maaragtay uu la tacaamuli jiray talis kasto oo yimaada meesha weligeedana maaragtay maamul ka jiri jiray ismaamul ka jiri jiray weligiis markii ugu horeysay oo maamul la'aan ku dhacay uu maamulka beelay waxay ahayd 1991 markii ugu horeysay banaadir markii ugu horeysay min awal yawm oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala u sakhray inay aasanto ilaa maaragtay 1991 maamul lahayn jirtay marka waxa dadkeeda xuquuq gaar ah leeyihiin dadkeeda xuquuq gaar ah leeyihiin ee maaragtay xuquuqdaasi kama siibi karo nin maaragtay oo sheekooyin oo qabyaalad ku dhisan wato haddoo rabto professor ha sheegto haddoo rabto siyaasi ha sheegto haddoo rabto maaragtay madaxweyne hore ha sheegto wasiir ra'iisul wasaare hore haddoo rabto ha sheegto haddoo rabto maaragtay wax hore ha sheegto xuquuqdaasiiti leedinkama siibi karo waa xuquuqdaas maaragtay mar walba waa inaad maaragtay aad codsataan oona maaragtay aad mar walba maaragtay aad soo xusuusisaan oo idinkana ay soo xusuusisiin saasoo kale kuraasta aqalka sare ayada lagu tixgelinaa kuraasta aqalka sare oo hadhoodii waxa wixii soo socda ma naqaan banaadiriga maaragtay maxaa ay awooda ay ku yeelan doonaan ama maxaa saami ay ku yeelan doonaan lama socono waxbaa soo socdo insha Allah laakiin in hadda tala la gudbiyo oo ay kamid tahay in maaragtay lagu lifaaqaa xuquuqdaas gaarka ah kuraastaas oo hadhoodii saamigiisa ee maaragtay leedin qoondeyn doono intaas lagu lifaaqaa xuquuqdaas gaarka ah leedihiin oo dadka indigenouska maxaa loogu talagalay dadka indigenouska saamiga ku soo aadaya 7daas kursi muxuu yahay xuquuqdooda waa gaar xuquuqday ka duwan tahay xuquuqda dadka kale way ka duwan tahay oo meesha soo degay kuwa meesha ku dhashay way ka duwan tahay dadkan waa u dhasheen oo loogu yimid halahaasayna joogeen weligoodna maamulka ku hoos noolaan jireen weligoodna ismaamulka ku hoos noolaan jireen waqtigu u horeeyay oo maaragtay maamul la'aan oo ku dhacay 1991 ku ahay 1991 uu ahay waqtigu u horeeyay meesha maamul laga siibay marka insha Allah talaan waxaan ku darsanaa maaragtay qowmiyadda iyo dadkeed insha Allah waxaan leeyahay horta masiirka reer banaadir isma la haysiin karo maaragtay shakhsi gaar ah oo masiirka banaadiriga isla haysiin karo ma jirto xisbi gaar ah oo maaragtay isla haysiin karo ma jiro jufo qabiileed oo gaar ah oo isla haysiin karto ayadana maaragtay in ma jirto in maaragtay intaas la iska ilaaliyo oo masiirka banaadiriga aan maaragtay la sheeb garaynin oo maaragtay si la rabo maaragtay aan loogu ciyaarin arintaas raali kama noqon karno inay maaragtay qolo gaar ah waxay rabtaa ayada iska abaabusho raali kama noqon karno waxawaaye haddii waxaasoo kale la arko dadkaas halala taliyo talaha la siiyo talaha lagu darsado saan yaa la yeelin sidaanaa saxsan kaligaaga maaragtay wax walba ha horboodin talay ka mid tahay sababta waxa waaye masiir uu ka dhaxeeya qowmiyadda dhan waay tala ay qowmiyadda dhan ay leedahay waay marka nin keligiis oo meel socdo oo ku dhahay maaragtay aniga hadda shira u socdaa ama koox maaragtay is abaabushay ku dhahayaan aniga fadhiyana laga wacay masiirka banaadira maaragtay aan kasoo hadlaynaa aan kasoo qabanaynaa ayadoona cidna la tashan siyaasiyiintiyaa joogan culamaa u diinkiyaa joogan bulshadii rayidkaa joogto wada dhaqankiyaa joogan ganacsiyada joogan qaybihii kala dhan oo banaadirigaha joogan ayadoo bicid la tashan kooxa maaragtay intays aruursatay maaragtay qofa intuu yimid uu maaragtay koox meesha ku samaysto yiri bax meeshaas taga fadhiya jira arintaas looga hadlooya arintiina looga hadlooya bax taga ama nin maaragtay inuu asaga uu maaragtay ismagiciisiyo is aruursado oo maaragtay uu
uu shirka qayb galo maaragtay oo hadhoodii taas ma dhici karto wax saxsanna ma aha haddii hore usoo jiri jirtay insha Allah inay baaba'do oo maaragtay sababtoo waxa waaye intay soo socotay wax horumar ah inay gaarsiisay ma jirto wax ay naga bedeshay ma jirto waa aragteen waa ku cibro qaadateen enough is enough marka taladii waxa kamid ah in maaragtay madal la sameeyo midlan madasha waxaan ka wadaa xisbiyaasha kala dhowr xisbi oo banaadiri ah maaragtay yani dad banaadiri ah furan ka wadaa xisbi banaadiri ma jiri karo xisbi banaadiri hadii lagu dhaw macnaha qabiil way xisbi deegaan qaas uu leeyahay ma dhici karto saas laakiin banaadiri markaan ku dhahay macnaha waxa ay kana si inuu fahmaan fiican inay soo fahmaan waxa mas'alada waxa way wan mafud markii lagu leeyahay Soomaali dhan way xisbi qabiil ma jiro marka ala kulli xal laakiin xisbiyaashaas oo ka dhashay qoomiyadda banaadiri dadka furay ka dhashay qoomiyadda banaadiri xisbiyaashaas maaragtay inay madal sameystaan khaasatan arrimaha hadda oo soo baxay oo laga hadlayo kale in maaragtay madal loo sameysto madasha faa'iido weyn ay leedahay sababtoo waxa waaye haddii aan madal la sameysan xisbiga inta shirku qabanaa hadhoodii maxaa shirkaas maxaa waaye masiirka banaadir looga hadlayo laakiin ujeedadiisa waxa waaye inuu asay isku xayeysiyo tabeelihiisa meesha ku dhigsanaa gudoomiyihiisa maaragtay microphone-ka iska haysto oo hadlaayo maaragtay telefishinka intaas iska rabaa maaragtay waxaan oo kale inay soo baxaan oo maaragtay uu shir isku yeero dadka oo maaragtay loo yimaado oo maaragtay ay dadkii oo maaragtay aan u jeedin oo fahansaneen maaragtay inuu meesha ku xayeysiyo xisbigiisa iyo maaragtay waxyaalahaas oo kale taas waxaa ka fiican madala ka fiican madasha waxa waaye xisbiyaashaas weli khaasatan kuwa diiwaan galsan ka sababtoo waxa waaye markuu xisbiga diiwaan galsan yahay uu sharciyeysan yahay sax iyo qalad meel loo raacdo leeyahay sax iyo qalad meel loo raacdo leeyahay arrintan arrin organization la xiriirto way maamul wanaagsan arrin la xiriirto way yalla dhayalsanin siyaasiyiinta saasoo kale aan dhihi lahay oo khaasatan maaragtay kuwa dowladda noogu jiro inay maaragtay ay saasoo kale madal sameysaan hoggaan maaragtay samaystaan culamaa u diinka iyo macallimiinta iskuulada macallimiinta dugsiga qur'aanka kulli inay ay saasoo kale wada tashtaan madal samaystaan ganacsatada kamid ah oday dhaqanka kamid ah oday dhaqanka khaasatan oo ayakana diiwaan galsan sharciyeysan oo maaragtay aqoonsigii ka soo qaatay wasaaradda arrimaha gudaha aqoonsiga ka soo qaatay sababtoo ah aqoonsigii la iskama siinin laakiin waa lasoo caleema saaray habkii nidaamkii maaragtay uu dhaqanku noqonayay uu soo maray wasaaradda maaragtay la geeyey waa lasoo maaragtay ansixiyey khalaas maaragtay uu noqday oo dhaqan sharciyeysan oo noqday kuwaas oo sharciyeysan ay kaliftooda inay madal samaystaan wixii aan sharciyeysneenna in maaragtay lasoo sharciyey haddii waa la gaarsiin karaa kule aan umalaynaa si maaragtay madasha ay qayb ugu noqdaan sababtoo dadka sharciyeysan maxay muhiim ay ku yihiin oo diiwaan galsan maxay muhiim waa soo tilmaamay sax iyo khalad hadhoodii meel loo raacday leeyihiin yaa saanna yeeli waxaan ka dambeeya yaa kan waa mafahanti haddii khalad uu dhaco haddii wax wanaagsan la samayna maasha allah taasna mas'aladaasna waa jirtaa jaalidaha dibadda laftigood maaragtay in ay saasoo kale ay u kulmaan dhowr jeer aniga waa arrintaas waa dhiirigeliyey waa soo qaaday laakiin maaragtay waxaan jeclaan lahaa in loo bislaado oo meelo kale aan laga boodboodin sababtoo waxa dad badan ku nool dibadaha maaragtay qaarkood hadda waxay samaysteen kulamay samaysteen waxay ku kulmaan matalan WhatsApp ku meelahaas ku kulmaan qaarkooda xafiisay leeyihiin oo maaragtay waxyaalahan maaragtay oo localka ah
oo shaqo raadinta iyo iskuul raadinta iyo sharci raadinta iyo saasoo kale ay ka shaqeeyaan maaragtay dadka ay maaragtay waxyaalahaasoo kale ay ka caawinaan kulamo noocaasoo kalaa jiro dadkii maaragtay hadda waxaa khaasatan technologygan markuu soo baxay dad badanaa maaragtay qolal furtay WhatsApp maaragtay waqti dheer 4 sano 5 sano maaragtay meesha saaxiib lagu yahay lagu sheekaystaa marka jaaliyadahaas maaragtay in ay ka laftigood inta isku yimaadeen saasoo kale nidaam samaystaan madal samaystaan ma fahantay oo maaragtay oo hadhoodii shirarka noocan oo kale arrimaha noocan oo kale ay qayb ka noqdaan marka waxaan jeclahay in maaragtay lees nidaamiyo lees diyaariyo insha Allah siyaasiyiinta ay u horeyso in maaragtay shirweyne beesha banaadiriga ay u qabtaan dalka gudihiisa maaragtay dhammaan tarafyadaas maaragtay laga soo qayb geliyaa baaqaas insha Allah waxaan jeclahay in siyaasiyiinta ay gudoomaan waxaan jeclahay maaragtay saasoo kale uga dhaqanka kale inay gudoomaan xisbiyada isdiiwaan geliyay oo khaasatan wadanka joogo kale oo ka shaqeynaya arrimaha maaragtay doorashooyinka kale ayagana saasoo kale maaragtay inay baaqaas ay gudoomaan maadaama intaas aan soo sheegay hadda ay xaqaa'iq oo jirto ay tahay waxaan jeclaan lahaa maaragtay in arrintaas laga fikro la isku diyaariyo maaragtay hadhoodina maaragtay si dhab ah loo qaato lana maaragtay ficilkeedana maaragtay lagu guda galaa haddii Ilaahay idmo marka insha Allah intaas aan baxa marka kulay خير عن إذا رجينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك